Asalaamu calaykum. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Ilaahay waxaan uga rajeynayaa caafimaad, wadajir, cimri dheer, daacad, dal jacayl, walaaltinimo. Wadankooda ay u turaan, qabiilka ay iska dhaafaan, khayrka ay jeclaadaan. Ilaahay waxaan ku baryayaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba qulubtooda iyo qalbigooda Allah mideeyo, quwad ay ku faanaan dadka iska celiyaan Allah siiyo. Dhalinyarada waxaan leeyahay maanta dhabarka dhulka iyo dhaqanka waa adinka, waana aad ka dhacsantihiin oo dhab uma aad eegtaan. Waxa maanta dhacayo dagaalaad ka tihiin oo dhab ahaan waad hurdaan ee dhalinyarada maxaa dhacay? Horta dhalinyaradii way iska hurdaan, qabiil baa goor hore lagu dhaashay sida dhoobada loo marmariyay. Sababtu waxay tahay mar walba dhaqanka kuu soo hormara ayaad qaadataa. Marka diintu waa idiin soo horreysa, laakiin ma garanayo meel diintu dhahaysana qofkii maantay qof kasta oo qabiil ku sheego qabiil ku nac ma ogi, laakiin isu aqoonsada diintu way dhageysaa, laakiin ma garanayo. Siyaasiyiin wareersan oo mucaaradka u horeeyo iyo rooblina meesha way qasayaan. Dhalinyaro aan isku duubnayn oo daadsanaan baahsan ay ka muuqatana wadanka way joogaan. Dal iyo dibad wax isku xiran way yaryihiin. Inta aqoonta lana runtii aqoonta hadda waxay ku qabanayaan muujeedo Soomade waxaa la rabaa in yar haddaad hesho inaad qof kula kaashato ood adiga halkaa horta aad ka bilowdo. Laakiin xitaa kii aqoonta lahaa halkaa fadhiyo oo dhaho maxaan qaban karaa aniga keligay? Qof walba halkaas taagantaa maxaa qaban karaa? Laakiin haddaa banaanka u soo baxdo dad unbaad helaysaa, cidla ma noqonaysid, dad unbaa ku imaan doona. Wax sidaada dameer iyo dhiig lahaa imaan doona. Aniga horta runtii hadda wadanka xaaladiisa aad ay ila liidataa, aad ay ila xun tahay, xaaladda way la qariban tahay. Sababtuna waxay tahay wallaahi anaga haddaan isku madax bannaan lahayn oo Soomaali uun ahaan lahayn wuxuun baaba dhici lahaa, way fiicnaan lahayd, waaba sharafba dadku way isqabtaan wayna heshiiyaan. Laakiin dad shisheeye adduunka dabadiisa dacladiisa fogfog baa wadanka la rabaa in laga maamulo oo wixii waagu ku barya Soomaaliya ogaato, galabta waxay ku cashayeen cidkana inay ogaato. Waxaas xaq maaha yaaqay dhalinyarada maxay ku dhacay? Marka anaga wadankanagii dee wadamo fogfog haddii dadkii joogay ay ka maamulayaan oo anaga mashina loo haysto rumuud maxay anagu maxaan ka noolnaa ma garan karo. Marka damiirkiinii uu tagaan leeyani damiir ma jiro, dadnimo ma jirto, danqasho ma jirto, deernax ma jiro, nacab diidid ma jirto. Wax walba dadka waxayba kala garan waayeen waxa u wanaagsan iyo waxa u xun. Gaaladii waxayba ka dhigteenba walaalkood in adeerkood. Wallaahi dadka qaar been inaan ku dhaaranayn waa ugu wanaagsan yahay maanta, aad iyo aad uga fiican yahay. Laakiin wax u qabanaya ma jirto. Walaalka uu kaa fogeynaya, wadankaagu kaa fogeynaya, diintaadu kaa fogeynaya, laakiin ma jirto. Adduunka dhan mucaarad wuu leeyahay. Wadan aan mucaarad lahayn maba jiraba. Laakiin mucaaradka maxay tahay? Mucaaradka wadankiisa hadday maanta dadka ay ka soo horjeedaan markaa xukunka hayaadna waxna kama sheegaan, way support gareeyaan, way dhahaan waxaan waa sax. Waxna way ku diidaan, laakiin waxay ku diidayaan markastaba wax kasta ku diidaan wax wadanka dhibaato u keenaya ma aha. Mar walba waxaa la isku raacsan yahay oo laga midaysan yahay waa wadankaas. Laakiin ra'yi waa lagu kala duwanaa karaa. Marka dadii ra'yigiina ku kala duwanaada oo dhaliila haddaad rabtiin madaxweynaha oo haddaa rabtiin wadankii dhali, laakiin dad shisheeye ha u yaacinina, waxa ka doonanina, shilin ayaad raadinaysiin. Allahu warkil shilinka kii sarqaanka hayso maahan oo maalin uun laga soconayo, surunkaa la ismarinayo, la isixinayo dhulkaas. Masagsagantiin horta lacagtu waxaad u malaynaysiin inaad iska haysanaysaa. Meedna tahay lacagta inaad iska haysanaysaa. Maxaa idin qabanaysaa lacag dawla lagu siiyo maanta? In yaraad ku noolaanaysaa. Intaa yarna xaaraan unbaad calooshaada ka buuxinaysaayo maalin walba adigana
cadaab iyo ciriiri unbaa kuu kordhiya. laakiin xitaa haddaad wax cunayso wax xalaal kugu soo gala cun, waxaan xalaal kugu soo galin iska dhaaf. hadda shaqo maanta haddaad qabanaysid oo hadda si caadi aad u shaqaynaysid, shaqadaas waa inaad si caadi u qabataa, waa siday tahay aad uga soo baxda. laakiin hadda wadankii dad waxaa jira mushaaro qaadanaya, dowladdii ay mushaar siiso, dowladda mushaarka siinaysana dadkaas ayay Soomaaliday kasoo qaaday, dadka ayaa iska leh, waa wax la wada leeyahay. wuu cunayaa, gurigiisa wuu geysanayaa, kiraduu isaga dhiibayaa, ilmihiisu iskool ugu dirsanayaa, siduu doonuu ka yeelayaa. laakiin lacagtaa waxaa loo siinayaa shaqada loo diray in si wanaagsan uga shaqeeyo ku qabto. umana muuqato hadda. Ordada iyo xaqa iska ilaaliya, war xoolaha ha cuninina, qof walbay waxaad lahayna cunin ilaa adigu malihida qiyaamaha lagu weydiinayaa. war adduunyadan haddaad u badato 100 sano dee laclac ku gaartaad ku noolaanaysaa, laakiin janno haddaad raadsatid weligaa firashad ahaanaysaa. jannada aad heshid maxaa kaa maqan? intaad halkan u dagaalam future-ka dambe kaasaa future ah, kaasaa nolol dheer ah, kaasaa laga dhimanaynin. war dadyahow Soomaaliyeed damiirkiina aaway. taxiro horta waxaan idiin akrinayaa hees ah, runtiinan anigu heesaa ma ihi, laakiin wadankeygan rabaa inaan wax wallaahi gurigeyga dhexdiisan joogaa, waxaan wax wadankeyga aan maalin inaanan xitaa aanan xaasidin, waa inaan idin tusaa waxaan qaban kara aniga maanta. waa intaan wax kalena u wada ma jirto, xoog ma lihi. qof walbaad wax ka sheegatiin, anigu wax ma qaban kara, laakiin aniga keliya waxay tahay halka wadada wanaagsan ood maraysaa keliya waanan idin iftiimiyaa. qof kastana wadadaas ayay anfacaysaa, ama gurigaaga joog, ama qol madow ku jir, ama qolcad ku jir, adig ku taala. dariiqa wanaagsan ayaa qof qabanaysa, ayaa anfacaysa oo future u noqonaysa. damirkii dadyahow Soomaaliyeed maxaa helay, dhalinyaradii marna mayna daalino, dadaal may geliney, dariiqyaday hurdaaney, danahooda maahee, qabiil bay dayaayaan iyo waxaana diiriney, Soomaali damirkiina aaway. ma dalkaad gadaysaan duufaamuhu hayaano, cadowguna dayaayo, dariiqyada la tubayahay, mase difaacaad gashaano, maalin waa iska diidaan, dadku waxay rabaane, ani waan ku daalay. dankay wuxuu yiri deeqaana qoray, dibnahaad maraysidee. dankay wuxuu yiri deeqaana qoray, dibnaha maraysidee, si xuna u doonin. dadka oo dishaayey dabinada ka goysa, dowladoodu dumiso, dariiqyada istaagto, wax la doorta maahe, Soomaaliyey damiirkii waxaa helay. dunidii fogeydba dalka naga yimidey, waxay doonayaaney inay darbiyad rartaane, damiirkii maxaa helay, Soomaali damiirkii maxaa helay. dayarteeni aaway, jamacadaha dareeriyey,
tacliinta daldalayo garanaya doorkay dunida ku leeyiin dalnayey 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 waan dalnayey dagaalmi galnayey daayartaan la hadlayaa qabiilkuu dardarayey daayartaan la hadlayaa qabiilkuu dardarayey duufaantu qaaday oon dunidaba joogin dalkoodii la qaaday maalin habeenkoon dadaalin dabinadana loo dhigay waa waxaa iskeen dilay dabinadana loo dhigay waa waxaana dardaray duni meel fog joogta wadankii dardaray dayartii away jamacadaha dareersho dalilada qorayay mayadan damiir gelin mase qabiil baa ku duugan dhiigan dabaasha dayarta Soomaaliyeed haddii aanay diirin dushaana ka tuurin qabiilkan dardari beri wale mandawno dowlad ma sugayne dowlad maan sugayno duug weeye rajada daa'imka ogey dalaalaan helayne dadaalkeed ma haysaan ciidankaad dilaysaan samcadeeda duugteen duni haddii la waayo ciidanan difaac gelin dalkaas wuu dhammaadee Soomaaliyeed damiirkii maxaa helay ma duugoobay noloshii dayartii miyaa qabiilo ku dawgalay dowladaha shisheeyood u doogsanaysaan gacmahood deeqa raadinaysaan dulinimada weeye yaa idin dilaystay dumarkii sinac baad u dirteen dariiqyadaad ku xoogtaan dulli baad ka dhigateen iyo xajaan dawo lahayn dunidan dib ayaan uga dhacnee ragga nobel yarka daabaca waadinka dadine marna isma dilaaney qabiil isuma doontaan qalinkay qoraano xaqay ku qaataan qaybay ku leeyiin haddii aanan qabanin qayrkiina
sheegin inaad qaldan tihiiney qorshaanan ohayn daryartaan quus baan ka joognaaye quus baan ka joognaa mar hore la quusiyey qabyaalada lagu shubay qalbigoodii buuxiday qayrkooda uga haree qorsha malahankaney wadankay qaribayaan tuweyan qoryahay qaadanayaan qalinkiina tuure qorshe kale mahayaan qalqalay wadaaney ani qooskanayanahay ana qaban karaya hadduu qaado talaadee miyaan soo qurguyaa dayartan isqabtay qalankian qaatay qabiilkan iska dhiga qorshe maaha waxaanuun inka qaadanayne qalad weeye taasiye qabkeennii away aan qorshahaan lahayn beri yaa qaatayoo qabriga kuwaasay sow qabiilka maahan qorshihiinu muxuu yahay soomaaliyey damiirkii maxaa helay maxaa duuga dhalintii maxaa daabshay qayrkii dadaal ayaan idiin rajeynayaa meel aad joogtiinba aniga waxaan qaban karo waa intaas waan ku baraarujinayaa nin adinkoo kalaa inuusan idin wadankiina uusan ilaalin ciidan aan loo soo dirin nin walbo ninka ku agtaagan waa adigoo kale askari haddaa taa askariga wadankaaga ilaalinaya waa adiga diblomaasi waa adiga madaxweyne waa adiga ra-iisul wasaare waa adiga wax kasta waa adiga laakiin wadankaaga waa inuu lambar ku noqdo lambar wan hadduu wadankiina noqon waayo walle waa laydin waayey soomaaliye meel aad magac iyo maamuus ku leedihiinna waa la wey doonaa mana jirtaba meel dad sidiinoo kale u dhaqmo wadamo badan oo ka burbur iyo dhibaato badnaa ayaa cagaha isku taagay adinka laakiin weli wadankiini weli cagaha waa isku taagi laaya ma garanayo waxa jira waa damiirkeena iyo dadaal xumadiinaba rag iyo dumar qabiil baad u taagan yihiin qabiilna qaran ma noqdee dad yahow hurdada ka kaca wadankiinana u dagaalama waan salaamaya dhammaan soomaalida damiirka iyo dadnimadana ilaaha bixiye rabbi deeqi weeye dalaaladaas alleeleh daa'imkay asalaamu calaykum